السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قيرت كحران صمتك أكاديمي كسور دوادا مدة دير عن كلام غانا كدب أسسو لابنا إن شاء الله تعالى. مركا مانتنا وحو كساب سنيهي عشر كاني أو مقال كان وحو كساب سنيهي فيديو كساب سن قار كاميدا أرديد معنا كحران صمتك أكاديمي سؤال مركز أي قوان إن سوي الدين أين أوجه دونا إن شاء الله تعالى. مركز سؤالها لسوي الدين أي ربا إن هل كان أدقوصو بندقو إذن كان لغياب إن مركا إن هدي أكهر مر سؤال شكواد بحول وحوليه هاي تاد هدي فوركس أن فائدة كالسمايو لعقت أن فائدة هالكي كتمد دي أن كوكا سارنا يا قادنا معنا العقد إن هرت السيدة هرق الكوش شاقي إن العقوال بقى فوركس كفائدة يعني lacagtaas waxay ka timaaday other market forex trader oo markaas ku qasaaray marka tusaale marka lacag cayiman buy dhahday yani waxaad lacagtaas marka aad iibsanaysay qof waxaa jira marka trader kale oo iska gad ayaa jira oo markaas ka soo horjeeda buy and sell marka kii marka saalka u galay hadii marka adoo buy u galay faa'iido qofkii saalka u galay markaas uu ku qasaaraa sida darteed marka hadii aad faa'iido waxay ka timaaday qofkaas oo maaragtay aad la macaamishay ama jihada ka duwan ee suuqa u galay ayaad maaragtay lacag ka heshay su'aasha kale la soo weydiiyay waxa ay shirkadaha dadka lacagta u dhiibay faa'iido ma laga sameey karaa yani wuxuu ka wada qofkan waxa u fahmay wuxuu ka wada shirkadaha prop firmska runtii shirkadahaas hadda ka hor waan ka hadlay FTMO review ku sameeyay waxaana sheegay in shirkadahaasi aysan wanaagsaneyn sababtoo ah shirkadahaasi yani shuruudo ay ku xiraayaan marka shuruudahaas ay ku xiraayaan meesha waxay saaraysaa hornimadii maaragtay waxyaabaha kale oo kala yaab FTMO waxa kamid ah yani shirkadaha prop firmska waxa jiro waxyaabo macnaha hidden oo qarsan oo aad marka hore ka warhayn sida waxa kamid ah markuu news soo baxayo trade galay kartid يعني habeenkii tareedka kuma furnaa karo iyo arimo aan la yaabay oo markaas aad iyo aad iga yaabiyay oo marka waxaan maaragtaa wax lagu tala galay inaan ku qasaarto laakiin dad badan way jiraan oo ku jira dadka qaar maaragtay sida aan arkay faa'iido way ka sameeyaan يعني hadba waxa ku xirantahay shuruudahaas ugu baaxsan marka ani ahaan styleka aan jeclahay waxaan waaye inaan brokerkayga iyo gaarka ah aan si xor ah u trade gareeyo oo inta account aan ka furto aan ku trade gareeyo xilliga rabo lacagta aan kala baxo yani maaragtay ayada wax shuruud la'aan xilliga rabo aan trade gareeyo xilliga rabana aan iska dhaafo marka saas aan ku fiican tahay su'aashan waxa waaye VIP signalska ma laga taajiri karaa har su'aashani waxay ku xiran tahay hadba ha iyo maya jawaabteedu kooban waxay noqonaysaa ha iyo maya hadii marka aan ha sababta aan leeyahay waxa waaye hadii qof professional oo soo diray oo suuqan experienced ah muddo 3 sano ilaa wixii ka badan suuqan ku soo jiray way aragnimo badan waxyaabo badan soo ogaaday waxyaabo badan maaragtay aqoon fara badan haaya qofkaasi oo maaragtay wala isku halay kara laakiin hadii qof oo soo diray qof aan qabiir lahayn oo kale oo u furtaba in macnaha lacag oo ka sameeyo ama asaga marka suuq soo jahwareera ama ku qasaaray dhowr jeer hore inta account furtay dhowr jeer hore qarxiyay oo haddana marka doonay in uu markaas qofka maaragtay lacag ahaan u furtay inuu ka sameeyo runtii ma yimid isku halay karo sababtoo ah laba qasaar ayaa kala kulmi kartaa midda koowaad lacagta VIP ga ku gadanayso way ka qasaartay laba waxa kale ku qasaar kale ku gelinaya oo aan buug risk management-ga u hadlado ka hor waxa qasaar kale ku gelinaya signalka aad qaadato ama trade-ka idea qofkaas aad ka qaadato qasaar kale ay ku sii gelinaya taas marka laba qasaar ay adiga qabtaa mar walba marka su'aasha kale waxa waa imise lacag ka sameey kara forex hadii aan ku cusub runtii tan waxay ku xiran tahay arimo fara badan ku xiran tahay ma ku dhigi karo intaas ama tira cayiman ma ku dhigi karo laakiin waxay ku xiran tahay waxyaabo badan ayaa ku xiran tahay sida yani lacagta aad ku trade gareynayso capitalka ah haysta intay dhan tahay lacagta maaragtay aad galayso dhaqaaqeeda loss size-ka aad ku galayso ama xaddiga maaragtay suuqa aad la galayso iyo sida fursad ugu hesho suuqa ay ku xiran tahay marka kuma dhigi karo intaas ka sameey kartaa kuma cayimi karo taas waaye laakiin hadii aad in percentage aad ku xisaabtanto tusaale ahaan anigu ka hadda iska soo qaado as professional trader waxa ku xisaabtamaa yani percentage ayaa ku xisaabtamaa inta lambar ku xisaabtami lahaa tusaale ahaan bishii oo kale boqolkiiba 10 boqolkiiba 15
ayaa macnaha si consistency ah macnaha si joogto ah ma ahan wax bishaan aan inta gaaro aan bisha kale aan gaaro kari waayo macnaha si consistency ah macnaha si joogto ah ma garat aan ugu sameeyaa qolkiiba 10 ilaa boqolkiiba 15 waana dadka waan ku dhiirigelaa in intaas ay ku xisaabtamaan wax macnaha goal ina sameeysto aron hadafkaasi waa inuu yahay mid macnaha measurable ah la cabir karo realistic ah oo yani xaqiiqada u dhow waa inuu yahay mid macnaha time macnaha leh waana inuu yahay mid macnaha suurtagal tahay inaad gaarto ma ahan inaad maaragtay aad salahan $100 ku bilowdo inaad baado bishan $1,000 ay sameeynaya ama 2,000 ama maaragtay yani si macnaha impulse ah macnaha si waa iska rabaa in inta sameeyo kale impulse waxa laga wadaa wax macnaha aad ku talagalin laakiin aad si degdeg isaga baahantahay oo kale waa iska rabaa oo kale waa iska anfacaa oo kale ama intaas waa jeclaan lahaa in iska gaaro kale taasna ma fiicna mar walba waxa roon ina maaragtay aad wax maaragtay macquul ah ku